Assalaamu calaykum asxaabi waa idin salaamay. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sidee iPhone batarigaaga kaga dhigi kartaa mid waqti badan taagnaada ama mid xooggan. Run ahaantii dhammaanteena waa ognahay in iPhone batariga uu yahay mid saaid u xun markii laga tago sanada ugu horeyso ama labada sano ee taleefankaagu cusub yahay. Marka haddii aad tahay qof markasta iPhone-kiisa jaajar gareeya isla markaana si dhaqsi ah batarigu kaga dhaco, ha walwalin. Maanta waxaan ku hayaa habab fudud oo aad iPhone batarigaaga kaga dhigi kartaa mid waqti badan taagnaada. Marka si aan taas u sameyno, marka ugu horeyso waxaan u baahanahay inaan setting-ka tagno isla markaana aan doorano Bluetooth-ka. Run ahaantii haddii Bluetooth-kaaga uu on yahay maanta dhan oo aadan isticmaaleynin Bluetooth-kaaga, taas micnaheedu waxay tahay in taleefankaaga uu batari saaid u cunay. Marka Bluetooth-kaaga waa inaad off ka dhigtid haddii aadan isticmaaleynin Bluetooth-kaaga. Okay, midda labaad ee aan u baahanahay inaan sameyno ayaa waxay tahay waa inaan imaadaa mobile data-ha haddii uu on yahay, wifi-gaagana uu on yahay, taas micnaheedu waxay tahay in labadooda si wadajir ah ay batarigaaga si xooggan ay u cunayaan. Marka haddii aad wifi isticmaaleysid uma baahnid mobile data, marka fadlan mobile data off iska dheh. Okay, markii aad midaas sameysid isla setting-ka dhexdiisa waxaa u baahanahay inaan imaano meeshan ay ku qoran tahay password and accounts. Meeshaas markii aad ku dhifatid sida u jeedid hoos waxaa ku qoran fetch new data. Okay, haddii aan ku dhifano sida u jeedin meeshan push ay ku qoran tahay waa on. Marka haddii meeshan push ay ku qoran tahay on tahay, taas micnaheedu waxay tahay in mobilkaaga markasta oo email amba wax loo soo diro uu isweydiinayo email miya. Marka taasna ay ku qasbayso mobilkaaga inuu batari badan uu isticmaalo, waayo emailka batari badan ayuu isticmaalaa. Marka si aan u yareeno batariga xooggan ee mobilkaaga isticmaalaya waa inaan meeshan push off ka dhigtid. meeshan hoosana daqiiqadaha iyo wax ku qoran aad 10 daqiiqo aad dooratid. Taas micnaheedu waxay tahay mobilkaaga markasta uu isweydiin doono in 10 daqiiqo kadib lagu soo diro email. Okay, arrinta kale aan sameynayna waxay tahay waxaa u baahan tahay inaad tagtid privacy. meesha ay ku qoran tahay privacy, markii aad tagtid waxaad doortaa location-ka markii aad ku dhifatid sida u jeedin location-ka waa on. Runtii location-ka 50% waxa batarigaaga dilaya ama wax isticmaalaya waa location-ka markii laga hadlayo iPhone-ka. Marka location-ka dad badan oo muhiim u yahay oo on lama wada dhihi karo, laakiin waxaad on off iska dhihi kartaa. Waxaad iska dhihi kartaa application-ada aad u baahnayn in aad ku isticmaashid location-ka, never aad iska dhihi kartaa, ama waxaad dhihi kartaa while using the app. taas micnaheedu waxay tahay markii aad application-ka oo kaliya aad isticmaaleysid. Marka runtii isla location-ka gudihiisa meeshan hoose ee ku qoran system service markii aad ku dhifatid, runtii meeshan dib badan ay isticmaaleysaa. Marka waxa u baahanahay inaan meeshan off ka dhigno si batarigeena uu u noqdo mid ka fiican xaaladda hadda uu ku sugan yahay. Okay, taas markii aan sameyno waxa u baahanahay inaan tagno generalka markii aad tagtid meeshan ay ku qoran tahay handoff-ka. meesha handoff-ka ay ku qoran tahay ku dhifo sida u jeedin handoff-ka waa on. taasoo micnaheedu ay tahay iCloud account-gaaga iyo mobile data-haaga in si wadajir ah batarigaaga ay si xooggan u isticmaalayaan. runtiina taas iPhone-kaaga uma fiicno, marka waa inaad off ka dhigtid handoff-ka. Okay, taas markii aan sameyno waxaa jiro application-adan saan u furan dadka badanaa ma xiraan. marka si iPhone batarigaaga uu noqdo mid waqti badan taagnaada, waxaa u baahan tahay inaad application-adan markasta aad xirtid, waayo batari badan ay isticmaalayaan oo aadanadi ogeyn. Marka okay, taas markii aan sameyno aan isla setting-ka gudihiisa ku laabano, waxaa u baahanahay inaad tagno general, kadibna aad ku dhifatid background and app refresh. meesha ku qoran tahay background and app refresh. Okay, runtii meeshan sida u jeedin application-ada dhan waa on, taasoo micnaheedu ay tahay in batarigaaga ay cunayaan haddii aad taleefankaaga isticmaaleysid iyo haddii aadan isticmaaleynin. Marka si aan u yareeno awoodda badan ee batarigeena ay ku isticmaalayaan waa inaan off ka dhignaa badankood, waayo background-ka amba meesha home-ka aad ka isticmaali kartaa application-adan muhiim kama aha inay inta on ka ahaadaan. marka application-adan aan off ka dhigno si batarigeena uu u fiicnaado. marka markii aan taas aan isla sameyno isla setting gudihiisa waxaa u baahanahay inaan tagno privacy-ga ku laabano. privacy-ga hoos markii aad tagtid hoos meesha ay ku qoran tahay analytic iyo advertising, meesha analytic ku dhifo. analytic markaa ku dhifatid runtii application-adan onka batarigaaga saaid ay u isticmaalayaan oo iPhone batarigaaga way dilayaan
si aydna u isticmaalayaan. Marka waxaa u baahan tahay inaad off ka dhigtid si iPhone baterigaaga u noqdo mid waqti badan taagnaada. Marka aan iskala dhigno sida ujeedin off ayaan ka dhigay. Marka run ahaantii asxaabay waxaa rajeynaa in ay idin caawiyaan intaas yar oo ku saabsanaa sidee iPhone baterigaaga kaga dhigi kartaa mid waqti badan taagnaada ama waqti badan aad isticmaali kartid. Fadlan haddii aad videogan ka heshay channelkayga subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag. waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi